بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دعواتنا شرفت له halkan naga daawaneysaan waa barta aynu Facebook kulana hali Soomaali Facebook iyo waliba barta YouTube kulana hali Soomaali official soo dhawaada waa markale muuqaal aad u xiiso badan marka muuqaalkayga ku sii dheeraado soo dhawaada dadka asxaabta quruxda badan inta nagu cusub muuqaalka si share gareeya follow laha asxaabta quruxda badan ee TikTok waxa ka codsanayna in address-ka noo tabtaan masha Allah waxa rabaa inaan ka hadlo hal arrin oo yar runtii maalmahan dambe baraha bulshada waxa aad ugu socday barnaamijyo samafala oo ay sameynayaan walaalo qaaliya aad ugu hambalyeynaya wayna ku mahadsan yihiin sidoo kale waxaan arkayaa in inta badan barnaamijyada marka caynkaas oo kale ay imaadaan asxaabta qaar isku qabsadaan iskuna dagaalaan waxaan leeyahay dagaalka biyo lagu shubo waxa wax u qabanaysan waa bulshada Soomaaliyeed laakiin hal mid ay ilowdeen midaas rabaa in ay idin xasuusiyo midaas oo ah qof wax loo qabto waxa ugu nugul carruurta Soomaaliyeed ee darbijiifka ah ee aad iyo aad ku dhibaataysan magaalada Muqdisho daafaheeda kala duwan ku dhibaataysan runtii wallahi muuqaalkan in caawa soo duubo ma rabin laakiin waxa uu soo duubo waxa ay tahay waxaan arkay dad qaar ay YouTube yaala iyo waliba baraha bulshada ku jira oo carruurta Soomaaliyeed ee darbijiifka ah ee aan haysanin hooyga iyo waxbarashada ku ciyaarayo views-na ku dhaasanayo walaal qaaliya waxa ka codsanahay barnaamijkaas in ka waantoodin waayo ma wanaagsana runtii carruurtaas hadda ka hor waxa laga sameeyay maanso aad iyo aad u qiiro badan oo ay ku dareenkooda looga hadlayo maasadaas rabaa wax yar oo kamid ah in ay idin maqashiyo waxaan jeclaan lahaa inaad ila dhageysataan runtii aad bay u xanuun badan tahay aqoon-yahana ma darsan xaalada darbi jiifku yaal digriga culimada wadaralle noogu mahadlan dastuurkuna wuu nagabay quraa'aduna wuu natagay dadweynaha uma bandhigo ciilkiyo dacaskana dhibay kuwii dadka ii higan agtooda ku daalane maxaan calayahow dushiyo daruurta meesha waxaa kaaga cad oo kaaga muuqata in yani tixda ay tahay mid looga hadlo waxa qalbigooda ku jira iyo waliba dareenka ay dareemayaan iyo baahida ay qabaan maasada inta kuma koobna oo inta ay ka sii badan tahay laakiin aad u qiiro badan tahay mar raba inuu ku sii dheeraado